fagaraha 18 May ee magaalada Berbera waxa maanta galinkii dambe isugu soo baxay taageerayaasha xisbiga kulmiye iyadoo xisbiga kulmiye ay ahayd maalintiisii u dambeysay ee ololaha waxaana kala qayb galay ololahaasi gudida campaign-ka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Cabdicasiis Maxamed Samaale fagarahaasi ayaa waxa soo buuxdhaafiyay taageerayaal aad u tiro badan oo taageersan xisbiga kulmiye iyo musharaxnimada madaxweyne Muuse Biixi waxaana halkaasi laga jeediyay hadallo cod loogu raadinayo madaxweynaha Soomaaliland ee hadda ah mar labaad musharax iyo xisbiga kulmiye xisbiyahan maanta inagu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka wadno aragti bay ku tartamayaan doodoodu waa dood hufan shacabaan waxaynu u baahannahay inaynu barbar istaagno oo tacab gelino markaa mudanayaal waxaanu martiidii ka nahay inaan maanta ay tahay maalintii ololaha u dambaysay codka inaan Muuse Biixi Cabdi Siisaan iyo Saajis oo diyaar uma tiidin mahad celinayaa dadweynaha gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera sida sharafta leh ee ay u muujiyeen rabitaanka ay rabaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad inuu soo noqdo dhammaan gobolladoo dhan waxay ku tusaysaa inuu yahay kacdoon shacbi soo sidaa maaha kulmiye ha guulaysto aad iyo aad baa mahadsantiin ballanteenu waxa weeye 13 Noofembar inaynu sanduuqa ku hubsanno codka laba cod baynu leenahay codka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo codka xisbiga kulmiye qof waliba waynu caawa kaarkiisii soo dhaweysto waxaa halkan ka muujiseen in gobolkeenu yahay gobol aan lagu tartamin walaalayaal 13 Noofembar waxay tahay afti qaran waxay la mid tahay 2001 waxaynu dib u dooranaynaa inay Soomaaliland ahaato xor inay Soomaaliland ictiraafkeeda hesho soo xisbiga kulmiye oranayno soo reer Berbera xisbiga kulmiye lama socdaan maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu kula soconnaa waa halgankii ballaadhnaa oo qarankan u soo galay waxa weeyaan shacabka reer Berbera ee ugu horeeyaan murmaalku geedaha iskaafadoorarka faracadda wastaaniinta nijaarinta murmaalka wax allaale waxa iyo watadariya yowkiisa la soo baxa sida ay xisbiga kulmiye horaba ugu ballanqaaday oo u fuliyey inuu u dhiso xaafado cusub oo ay ku nagaadaan iyo guryo cusub ayaa madaxweynaha wakiilkaga nahay waxaan leenahay insha allahu guud dabadeed waxaynoo ballanaa inaynu guryo cusub iyo xaafado cusub magaalada ka dhisno ay maanta ka cabaabayso waxaan leeyahay dhammaan bulshada reer Somaliland codkiina siiya Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye tolada hawa siiya leeyahay waxa shalay qiimo leeyay qaarkood galoobay oo halkan magaciidin oo Berbera markuu qabsado sideeyayooda maantana adduunka noolayso wax ka sheegayay والوافق يفرتينا ويصاد ما تعاليه نحن حنا أسحلنا كل يوم سحر صلاة ركعة مجاهدك موسى وهاليي وأنا حرب النار وأويل هالجمل أو صاح الجمل وأنا حرب اليقان أو سيس كدلن أنتوا هاسقرا كلا هذه كلا وحنا أمانة نمبر كلامنا يقول عليكم مدحوينها يا مدحوينها كلها سبق الإنسان وما كتبنا وحي موضوعين بين حزبنا كلية سبق الإنسان أنت سبق مسكوت الدارينا ولا نعلم إن عرنا الدكتور ما ليسوا شيئا وحي كسعتها قبل كائن ولا على النهاية عودل إيو قبل كساحل علينا سياسات أما كشعبور سياسات أيين يصلحين إبدا أولي ما ينالس خسارين دايري علينا ودور ما أحمد يوسف ياسين ما أنت إيش علينا سيدي موسى ولا دور ما
maantana saajid iyo muuseynu wada dooranaynaa waxaan reer awdal leeyahay reer awdalow ninaan idiin rari doonin oo idiin furin oodi ab ka dhow baa la yidhi maanta xisbi baa leedihiin reer awdalow waa gumoobaysaan haddii maanta axmed ismaaciil samatar dhaco waa gumoobaysaan kummitina sidaa la socotaan dalka gees ilaa gees maanta waxay ahayd maalin kulmiyad dalku u doonayo yahay banda dhalinyarada tiraada halkaasay u sudleeday maanta dalku kulmiyi u sudnaa kulmiya bulshada intaa laga socdaa cabdiraxmaan zayle saaxiibkii waxaan leeyahay waxaan maqlayaa waxyaabo iminka aad iyo aad suuqa ugu badan toddoba jeer baan ku celiyey anigu cabdiraxmaan toddoba jeer baan u celiyey halkaan ha iga dawado toddoba jeer aan u celiyey waxa iga tirsada kulmiyo dhabiyamadowgiis waa u celiyey saddex jeer waxaan ugu celiyey inuu hogaanka xisbiga ka mid noqdo marka laga soo bilaabo shirkii ambaasadar ee 2008 ilaa 2020 ku dhigay labadooda hogaanka ku noqda allah u celiyey weliba mar ka mida khilaaf baa dhacay waxaana xogeeyey guddiga khilaafaad inuu soo noqdo go-aankana yeedhiyey oo mar labaad soo noqdo laba jeerna waxaan ugu celiyey marna shirkii buxee cabdiraxmaan aw cali faarax aan kaga reebnay inuu wajisada xaqayaalaan ugu celiyey marna shirkii 17 ee uu sabkii 15 2015 ee xagga toosiyada uga reebnay madaxweynuhu ugu celiyey halkaas soo sharma laba jeer marfadkii ka xageeyay inuu madaxweyne noqday kana inuu katrina saara kala noqday waa 7 jeer toddoba jeer muuse biixina ugu celiyey madaxweynaha dalka madaxweyne silaayo oo xisbiga aasaasihiisa madaxweynaha toddobadan ugu celiyey saasaan isugu dhafay markaaba toddoba jeer kuu codeeyay maanta laba nin aad samayso be ilaa 14 sannadood markaad ahayd madaxweynihii deegaankii iyo ninkii ugu sarreeyey ku ogaado ninkii ugu sarreeyey markaad ahayd ilaa xubinta xisbiga kulmiye ee kudurtaysa saajid isbedel taagtaabe adigoo jamaahiirtii fugaawatay xisbiga kulmiye abaalkooda ilaalinaya haddaad taagdiintii inaad tiraahdaa leeyahay gobolka awdal baan xisbi la soo saarayaayo waxaan isbedel taagayaa ilaa taana baad yeelay way kala jibs maanta meelma saaxiib kuwa dhan qabtee anigu waxaan kubaa inta dambe iskaba qabo jamaahiirta xisbiga kulmiyana abaalkooda meela kaga dhici ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye cabdicasiis maxamed samaale oo isagu uga mahadnaqay isu soo baxan ballaadhan ee ay sameeyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada berbera isagoona ugu baaqay taageerayaasha inay codka siiyaan xisbiga kulmiye iyo musharaxa xisbigaasi oo ah madaxweyne muuse biixi cabdi doorashooyinka aynu qabsanayno waxa ku suntan xisbiga kulmiye waxa ku suntan madaxweynaha somaliland waxa ku suntan walaalayaal hogaanka suuban ee dalku leeyahay waad ogtihiin madaxweyne axmed maxamed maxamuud sinaayi 2012 wuxuu furay ururada siyaasiga dib baa loo tartamay waxaana soo baxay axsaab qaran oo ay ka mid yihiin 3 xisbiya maanta talada hayaa waxaa ku guulaystay oo arrintaas sameeyey madaxweyne axmed maxamed maxamuud sinaayo intaa dabadeed walaalayaal waxaynu galay doorashooyinkii badnaa ee kala dambeeyey waxaynu galay tii madaxweynaha ee 17 ee ku guulaystay madaxweyne muuse biixi cabdi waxaynu maanta gelaynaa doorasho isa saaran oo 3 xisbi qaran ay soo baxayaan madaxweyne qaran oo soo baxayo doorashooyinka noocaasa cidda qabataa waa xisbiga kulmiye iyo hogaankiisa waa madaxweynayaasha ka soo baxa xisbiga kulmiye sida madaxweyne axmed maxamed maxamuud sinaayo iyo madaxweyne muuse biixi cabdi walaalayaal maanta waxaynu dooranaynaa marka koowaad madaxweyne muuse biixi cabdi waynu codkeenna siinaynaa soo sidaa maaha codkeenna yaynu siinaynaa codkeenna madaxweyne muuse biixi cabdi soo maaha oo nambarka labaad ku qoran soo maaha codkeenna labaad ayaynu siinaynaa xisbigeenna kulmiye soo maaha oo nambarka 10 ku qoran soo maaha soo sidaa maaha walaalayaal
maanta dadka reer Somaliland way codeeyeen runta marka loo hadlo maalmaha ololaha la sameeyay shacbiga reer Somaliland way hadleen oo waxay yiraahdeen waxaan madaxweyne u dooranaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi